عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوادا ومركلي مع العبقري هالكن ومع العبقري يوتيوب channel وجنال كيني سودوادا مانتي عشر كاين ودنو vocabulary لو يغاني 4000 essential English wordska بوغي كواد unit كي سدحي تمنادا ينو مانتا أخرينينا بلسينتانا شرحادا يدروستا يدقيسيغا أنا نوغلين سودوادا برشدا كلا دوان كحيران جنالكان كان فايديستا برشدا اللغة إنجليشكا انت كحيران عاد بانو مهد علينيا سدو كالنا انت جعل اني كسو بيران عاد بانو سودوينيا waxaan rajaynayaa insha Allah inta hore ugu taxnaadna inay si maaragtay si share gareyn si bulshada u baahan ay uga faa'iideysato cidda cusub ee nagu soo biireysana waxaan jecelnahay insha Allah inaan soo dhaweyno shareta iyo lagta iyo maaragtay subscribe to inaad maaragtay aad ugu dadaashaan insha Allah si bulsho badan ay u gaarto inaguna maaragtay dhiirigelin inagu noqoto si aan mar walba had iyo jeer casharo badan u soo dhigno aad mahadsantihiin balse intaanaan u galin sharaxaada unitka aynu dhageysano sidii caadiga ah ahayd insha Allah. Unit 13. Word list. Blood. Blood is the red liquid in your body. I cut my finger and got blood on my shirt. Burn. To burn something is to set it on fire. I burned some wood in the campfire. Cell. A cell is a small room where a person is locked in. The jail cell was very small. Contain. To contain something is to have it inside. The mailbox contained a letter. Correct. To be correct is to be right. All of my answers on the test were correct. Crop. A crop is food that a farmer grows. Wheat is a crop that is made into bread. Demand. To demand something is to say strongly that you want it. The workers demanded to be paid more money. Equal. To be equal is to be the same. Both students are equal in age. Feed. To feed is to give food. Mother feeds my baby brother every day. Hole. A hole is an opening in something. The man was going to jump into the hole in the ice. Increase. To increase something is to make it larger or more. They've increased the price of gas by 15 cents. Lord. Long ago, a lord was a man in charge of a town. The lord of the town was not kind. Owe. To owe is to have to pay or give back something received from another. I owed him $20, so I paid him back. Position. A position is the way something is placed. How can you sit in that position? Raise. To raise something is to lift it up. We had to work together to raise the last piece. Responsible. If a person is responsible, they do the right things. I tried to be responsible and save money. Sight. A sight is something interesting to see. I saw the pyramids of Egypt. What a sight! Spot. A spot is a place where something happens. The kitchen is a good spot to eat meals. Structure. A structure is a building. They just built a beautiful new structure downtown. Whole. Whole means all of something. I ate the whole pie. We don't have any more. Okay, inta waxay noogu dhan dhageysashada unitka 13aad markan insha Allah aynu sharaxno
Target wordska waa 20 eray ayaan sharaxi doonaa. Erayga ayuu dhigayaa noun verb wuxuu sheegayaa kadibna jumlo gelinaya. Wuu macnaynaya aan dhahay kadibna jumlo gelinaya. Erayga koowaad waa plaid marka waa noun sida ka muuqata waa noun. N ayaa naloo qoray. N stands for noun. Blood dhiigu is the red liquid waa dareere guduudan in your body ee ku jira jirkaaga. I cut my finger fartan iska jaray and got blood on my shirt. Shaatigana waxaa iga gaaray dhiig. Got blood on my shirt shaatigan dhiiga iga halaabay. Pan waa gubid ama gubasho. To burn something na wax gubto is to set it on fire oo inaad dab qabadsiiso. I burned some wood waxaan shiday macnaha xoogaa qoryo ah in the campfire. Dabka meesha markaas dalxiisayaasha ama campka ama xerona waa laha military camp. Dadka dalxiiskana waa la yiraahdaa meesha isugu yimaadaan oo campka markaas ama qaxootiga refugee camp oo kale. Marka campfire dabka loo shido campka ayaan qoryo ku shiday waaye macnaha. Erayga xiga oo cell waa macno badan uu leeyahay. Unuguna wuu noqonayaa laakiin hadda wuxuu ugu jiraa macnaha xabsiga qolka xabsiga qofka lagu xareeyo. Marka a cell is a small room waa qol yar where a person is locked in halkaas oo qofka gudaha lagu xirayo macnaha locked in. The jail cell qolka xabsiga was very small hada ayuu yaraa. Contain waa ku jira ama kooban ama ku jira waaye. To contain something in wax ka kooban yihiin ama is to have it inside oo wax inay gudaha ugu jiraan. The boxka mailka ama lagu la soo dhigo sanduuq boosiga macnaha contained a letter waxaa ku jira warqad. Correct waa sax. To correct waa adjective markan kana waa v waa verb kana waa n waa noun. Correct means adjective waaye. To be correct waxay saxan yihiin is to be right waa inay wax saxan yihiin. Right iyo correct waa same. All of my answers dhammaan jawaabahayga on the test imtixaanka were correct dhammaan saxay ahaayeen. All of my answers dhammaan jawaabaha on the test imtixaanka were correct. Crop waa dalag raashin. A crop is food or cunto that a farmer grows uu abuuro ama beero qofka beeraleyda ah. Wheat qamadigu is a crop waa dalag that is made into bread laga sameeyo rooti ama rooti laga sameeyo. Demand waa dalbasho waaye. To demand something na wax dalbato is to say waa inaad tiraahdaa strongly si xoogan that you want it inaad si aad u doonayso dalbasho. The workers waa shaqaaluhu demanded waxay dalbadeen to be paid more money in lacag fara badan la siiyo macnaha mushaarka loo kordhiyo. Equal waa la mid ah. Equal to be equal in wax la mid noqdaan is to be the same waa inay isku mid ahaadaan. Both students labada arday are equal in age ahaan waa isku mid. Feed waa quudin. To feed inaad quudiso is to give food waa inaad cunto siiso. My mother hooyo feeds my baby brother waxay quudisaa cunto siisaa walaalkay baby brother every day maalin kasta. Hole waa good. A hole is an opening in something waa wax furan waa good. The man was going to jump ninku wuxuu ka boodayay into the hole in the ice. Godka barafka ayuu ka boodayay ninku. Marka jump waa boodis. Hole waa good. Ice waa barafka. Increase waa sare u qaadis waaye ama siyaadin waa. To increase something na wax siyaadiso ama sare u qaado kordhiso macna is to make it larger ina balaariso waaye ama more badiso. They have increased the price of gas waxay kor u qaadeen ama siyaadiyeen ama kordhiyeen gaaska lacagtii gaaska per 15 cents waxayna ku dareen 15 cents ayaa lacagtii shidaalka lagu dareen waa la qaaliyay macnaha. Lord waa nin madax ama long ago muddo dheer ka hor. A lord was a man in charge of town ninka magaalada mas'uulka ka ah ayaa lord loo yaqaanay muddo dheer ka hor. The lord of the town ninka magaalada madaxda ka ah was not kind ma ahayn mid naxariis badan.
waa wax ku yeelasho waay, dayn ku yeelasho waay. Marka owe waxaa la sameeyaa subjectiga qofka wax lagu leeyahay ayaa la hormarinayaa. I owe you money haddaan ku dhaho adaa lacag igu leh. Haddaan ku idhaha laakiin you owe me money anaa lacag kugu leh. Macnaha subjectiga haddii la hormarsho qofkaasa wax lagu leeyahay. Marka to owe is to pay ama give back something. To owe macno waxa waaye is to pay is to have to pay. Waajib waa inaad bixiso ama give back something waxaa dib u bixiso receive it from another ad qof kale ka keentay. I owed him wuxuu igu lahaa $20 $20 so I paid him back dib ayaan u siiyey. Marka I owe him wuxuu igu lahaa fiiriya waxaan ku lahaa ma dhahay sababta ayaan ka bilaabay I owed him wuxuu isagu igu lahaa qofku wax lagu leeyahay sababta la hormarinaya qofku wax lena wala daba marinaya. Marka position waa booska ama booska qofku markaas fadhiyo kale ama boss. Waxaa la yidhi a position is a way waa hab something is placed hab wax loo dhigo meel. Can you sit in that position? Ma fadhiisan kartaa la yidhi booskaas. Raise waa sare u qaadid. To raise something is to lift it up. To raise something inaa wax sare u qaado is to lift it up waa inaa sare u qaado. We had to work together waa waajib inaynu wada shaqeyno. Had to waa masi baasigeedii. To raise ina sare u qaadno the last piece gobolka macnaa shayga u dambeeya. Responsible waa mas-uul ah. If a person is responsible haddii qofkii mas-uul yahay they do the right things. waxyaaba saxa ayay sameeyaan. I try to be responsible waxaan isku dayaa inaan noqdo qof mas-uula and save money lacagna kaydsado. Side waa aragti waa noun and waa kana adjective waa midba hor yaala. A sight is something waa wax interesting to see wax xiiso leh aad aragto waaye. I saw the pyramids of Egypt waxaan arkay ahraamtii macnaha Egypt. What a sight alla maxay aragti fiican tahay. Spot waa goob ama place waaye. A spot is a place waa goob where something happens halkaasoo wax ka dhacaan. The kitchen kushiinka is a good spot waa goob wanaagsan to eat meals ee cuntada lagu cuno. Kushiinadeenoo kale maa kushiina ama jikina waaweyn waaye. Structure waa building. A structure is a building waa dhisme. They just built a beautiful new structure downtown. They just built waxay hadda ka dhiseen waaye a beautiful new structure dhismo cusub ayay ka dhiseen downtown magaalada hoose. Whole waa dhammaan. A whole means macnaheedu waxa waaye all of something dhammaan wax walba. I ate waxaan cunay the whole pie ayaan cunay waa doorsha camal walaalayo bisa camal waaye. We don't have any more wax badan ma haysano. Anaa wax dhanba cunayba waaye. Intaa waxaa inoogu dhan 20 eray oo targetka ahaa dhageysigoodii iyo macnayntoodiiba. Halkani waa Ustad Abqari YouTube channel. Kusoo dhawaada cid kasoo danaynaysa buugagtan waa 6 buug waaye laakiin sida caadiga halkii asbuuciiba 2 cashir oo kale baan soo dhigi doonaa. Laakiin cid danaynaysa buugtan iyo koorsooyin fara badan oo kala duwan ayaad ka heli kartaa Ustad Abqari YouTube channelkiisa waa si free ah balse waxaad heli kartaan duruusta kale caadiga ah ama vocabulary 6 buug oo isku xiran waxaad ka helaysaan Abqari Online Academy. Soo dhawaada WhatsApp-ka aad aragtaan laftiisa oo nagala soo xiriiri kartaan. Aad waa sintiin waan salaamay waa Ustad Abqari idin la siisay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti dambe xiiso leh.